sareda haday ku arko Soomaaliya Soomaaliya kulan raaligelin iyo baaq nabadeed ah ayaa haweenka gobolka Banaadir waxay raaligelin ka bixiyeen hadalkii dhawaan ka soo yeeray qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed kaasi ay ku sheegeen in ay dhowraan anshaxa dawladnimada waxaana lagu taageerayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac Jawaahir Barqab gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Sayni Maxamuud Xabsay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti iyo xildhibaano labada gole Soomaaliyeed waa gabdhihii wax dhisi jiray ma aha gabdhaha wax dumiya gabdhaha dabka dhaliya ma ahan waa gabdhaha dabka damiya u shaqeeya ragga haday qaldan yihiin toosiya maaha kuwa ragga isku gubi lahaa ama maanta xaalad siyaasadeed ka sameey lahaa dalka madaxweyne ma isaga laga dhaxarkaa wali waxa uu dhimo waqti xildhibaano lama soo dooran waxaan ugu hadlayo dhawaa gardarro garab og ilaahay ka cabsada xilku waa weerto waa qori isku dhiib farmaajo Israa'iil kama iman waa nin Soomaaliyeed waa muwaadin guddiga la noo sameeyay fiid iyo siilba waxaan raalli uga nahay waxa ku jira dadkii gobolkayga matalay gabagabadii kulankan ay yeesheen haweenku ayaa waxay ka soo saareen warmurtiyeed waxaana saxaafadda ka hor akhriyay Maryan Axmed Maxamuud gudoomiye ku xigeenka haweenka gobolka Banaadir maanta oo ay taariikhdu ku beegneed 8/12/2020 haweenka Soomaaliyeed ayaa isugu yimid kulan nabadeed ay kaga hadlayeen muhiimadda nabadda iyo xasiloonida ay leedahay haweenka Soomaaliyeed ay ka duulaya waqtiga dalka uu maraya iyo diyaar garowga doorashada dalka waxa ay soo saareen baaq nabadeed oo ku wajahan madaxda dawladda iyo madaxda qaranka haweenka Soomaaliyeed waxa ay ku baaqayaan in la wada ilaashado amniga iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed ay xilligan ku noolaanayaan lagana fogaado wax walba oo caburin kara ama hadallada colaadda iyo ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking